runtii waqti badan uma haynin video inaan sameeyo xilligan adag, laakiin waxaa igu kalifay dadkeena oo aan aqoon fara badan u lahayn cudurrada faafa sida coronaviruska iyo waxyaabo fara badan oo been abuur ah oo laga soo buuxiyay internetka. tusaale ahaan Bill Gates 5 sanadood ka hor 2015 markuu ka hadlayay barnaamijka TED ayaa waxa uu sii saadaaliyay hargab aan daawo loo hayn oo malaayiin qof ku dhici doona, malaayiin qofna dili doona, adduunkuna aanu u diyaarsanayn. waxa uu ka hadlayay in adduunku diyaar garoobay nuclear inuu iska difaaco, balse virus aan la isu tabaaburshaynin oo aan loo diyaar garoobin. wuxuu tusaale soo qaatay hargabkii 1918 adduunyada ka dhacay kaasoo dilay ilaa 30 milyan oo qof, kaasoo la oran jiray the Spanish flu. 1918 si fudud ayuu hargabkaasi daafaha iyo cidhifyada caalamka ugu faafay iyadoo oo aan aqoon hore loo lahayn. waxa kale oo uu tusaale soo qaatay Ebola markii uu ka dilaacay galbeedka Afrika, kaasoo dilay 10,000 oo qof, isaguna adduunyaduna aanay diyaar u ahayn, aqoon horena aanay u lahayn, ka horna aan wax cilmi baadhis lagu samaynin waxyaabaha soo socda. dad baa haddaba arrintaas iyo hadalkaas uu sii saadaaliyay 5 sanadood ka hor Bill Gates u turjuntay in uu wax ka ogaa coronavirusku hadda markii uu dilaacay, oo ay yiraahdeen waa dadka maalqabeennada ah oo doonaya inay dadka danyarta ah ay haystaan oo ay xoog ku haystaan tiradoodana la dhimo, maadaama tirada dadku ay sii badanayso oo ay ka baqayaan dadka maalqabeennada ah ee yar ee caalamka jooga inay maamuli kari waayaan ama ay control kari waayaan dadka xoogsatada ah ee u shaqeeya iyaga hadeerto ee daafaca caalamka ku kala nool. dad kale ayaa iyaguna waxa ay aaminsan yihiin in coronavirusku yahay wax gacan ku sameys ah. waxaa jira shaybaar aad u weyn oo ku yaala magaalada hadda cudurku ka dilaacay dalka Shiinaha ee Wuhan. shaybaarkaas oo lagu kaydiyo fayrasyada caalamka ugu halisaysan sida coronaviruska, Ebola, SARS-ka, MERS-ka iyo virus kasta oo caalamka ka jira lagu kaydiyo, iyadoo Shiinuhu ay sheegayaan in shaybaarkaas loo sameeyay in cilmi baadhis lagu sameeyo talaalo iyo daawada loogu raadiyo si mustaqbalka haddii uu yimaado oo kaleeto aanu noqonin wax halis oo faafa. waxaana arrintaa si balaariyay tuhunka dadku ay qabaan markii la dilay dhakhtar fashiliyay markii coronavirusku uu dilaacay oo Shiineys ah oo ka shaqeynayay isbitaal ku yaala magaalada Wuhan. dad kale ayaa aaminsan in dadka u ololeeya deegaanku ay ka dambeeyeen samayska viruskan coronaviruska ama COVID-19 iyadoo la doonayo in tirada dadka caalamka la dhimo si loo badbaadiyo deegaanka iyo cimilada sii kululaanaysa, adduunyadana uu jiilalka soo socda u noqdo meel ay ku noolaan karaan oo aan ahayn meel halis oo la xaalufiyay. haddii tirada dadku ay sii badatana deegaanka aad loo isticmaalo, diqowga iyo qiiqa warshaduhu ay sii daayaan uu ku noqon karo sun dadka ku noolaan doona. dad kale ayaa aaminsan in coronavirusku uu yahay hub biological ah oo ama Shiinaha ama Mareykanku ay sameeyeen, balse sidii loogu talagalay iyo meeshii loogu talagalay in lagu hayo ka baxsaday, isla mar ahaantaana ku faafay dadweynaha, dabadeedna la qaban kari waayay oo daawo loo waayay. viruskaas oo iyada oo bacteria walba ama virus walba oo loo sameeyo hubka biologiga ah loo sameeyo wax lagaga hortago ama antidote waxa la yiraahdo, balse intii aan la gaarin in la sameeyo talaalka ama daawadiisii uu baxsaday, isla mar ahaantaana loo caalayahay. dad kale waxay aaminsan yihiin in dadka sameeya daawooyinka ama warshadaha iska leh daawada sameeya ay ka dambeeyeen si ay uga lacagaystaan inay daawooyin cusub sameeyaan ama talaalo cusub ay sameeyaan oo laga iibsado. haddaba wax way ka jiri karaan waxyaabaha qaar, laakiin waxyaabaha intooda badani waa been. tusaale ahaan arrinta Bill Gates oo kale, dad kasta oo caqli leh ama aqoon leh wuxuu sii saadaaliyaa, waxna uu sii saadaalin karaa. waxaa jira wax la yiraahdo simulation, taasoo sii saadaalisa waxa dhici doona iyadoo laga cibro qaadanayo dhacdooyin hore oo dhacay. tusaale ahaan waxaa la saadaalinayaa hadda dalka Mareykanka inay ku dhiman doonaan qiyaastii 2,000,000 qof, 250 maaha dad og dadku inay dhiman doonaan ama haya xisaab run ah, balse computer simulation ka marka la sameeyo boqolkiiba dadka inta uu ku dhacay, tirada dadku inta ay tahay wadanka, inta da'doodu ay weyn tahay, inta uu nugul cudurrada marka la saadaalayo, waxa soo baxaysa celcelis qiyaasta inta dhiman karta iyo inta ka bogsan karta iyo inta u geli karta ICU-ga ama qolka kaalmada degdega lagu siiyo qofka bukaanka ah. marka aynu nimaadno arrinka shaybaarka weyn ee viruska lagu kaydiyo ee Shiinuhu uu samaystay, waa arrin ay wax ka jiraan, waana wax dhici kara. waayo waxa bishan Mareykanku ay xireen nin professor oo wax ka dhiga jaamacadda Harvard kaasoo ka qayb qaatay
samaynta shaybaarkaasi iyo kaydinta fayrasyadaasi. run ahaantii shaybaarkani waxa uu ku dhegan yahay suuqii ku yaalay magaalada Wuhan ee la yidhi waxa uu ka dilaacay fayraska. shaybaarkan oo suuqa isaga ay xayawaanada lagu iibiyo ee la yidhi cudurka ka dilaacay ay derbiga isku hayaan ayaa waxa uu yahay kan haya fayrasyada ugu halisaysan caalamka. waa wax dhici kara markaas fayraskaasi in ama uu hawada soo raacay ama uu biyaha lagu maydho dhulka shaybaarka oo dareeraha ay soo qaadeen isla mar ahaantaana sidaas uu ku soo gaaray xayawaankii suuqa lagu iibinayay ama dadkii iibinayay ama dadkii iibsanayayba isla mar ahaantaana ay sidaa ku qaadeen. balse waxa su'aashu ay tahay sidee fayraska noocaas oo kala ahi uu isu bedelay mar qura uu noqday noocan cusub ee COVID-19 ka loo yaqaano oo ah nooc halis ah oo ka daran kuwii hore ee la arki jiray. dad badan oo daawaday filimka loo yaqaano Contagion oo la sameeyay 1911 xilli haddeerta laga joogo 9 sannadood waxa ay la yaabsan yihiin isu ekaanshaha qaabka haddeerto uu u socdo fayraskan COVID-19 ama coronaviruska loo wada yaqaano iyo sheekada filimku sida ay dhan walba iskaga mid yihiin haddii ay noqoto cuntada oo gabaabsi noqotay, waxyaabaha maciishada ah, daawooyinkii, qaabka dadka loo karantiimayo, sida loo kala xidhxidhay wadamadii iyo gobolladii, sida xanuunkani uu markiisii hore ku dhashay, meesha uu ka bilaabmay, waxyaaba badan ay iskaga mid yihiin. marka miyaa la oran karaa tusaale ahaan dadka filimkaa sameeyey iyaguna waxbay ka ogaayeen in dadka lagu laayo fayraskan? arrinka ku saabsan in uu yahay hub biological ah oo baxsaday taa iyada ah wax fara badan hadda kama ogaan karno, waana wax dhici kara ilaa xaqiiqadu ay soo baxdana ma aamini karno. arrinka ugu yaabka badan ayaa waxa uu yahay fayraskan oo 5 strain waxa la yidhaahdo ama calaamadood kaga duwan fayrasyadii hore ee jiri jiray. fayrasyadan oo isdaba taxnaa oo ah fayrasyada ku dhaca habdhiska neef mareenka si dhaqso ahna dadka u dila, si dhaqso ahna loo kala qaado, wax daawo hore oo loo hayayna aanay jirin ayaa waxay ka soo bilaabmeen kii la oran jiray SARS-ka, waxaa ku xigay MERS-ka oo isna bariga dhexe ka dhacay, iyo hadda kan COVID-19 oo ugu dambeeyey. mid walibana midka uu ka dambeeyey waa uu kasii halisaysnaa wuuna kasii khatarsanaa. maxay tahay haddaba sababta ay uga bilaabatay SARS oo ahaa kii shimbiraha laga qaadayey oo ka bilaabmay dalka Shiinaha, MERS oo ahaa mid bariga dhexe ka dilaacay ama Middle Eastern Respiratory Syndrome marka la soo gaabiyana MERS loo yaqaanay oo isagana geela laga qaaday, geelu uu gudbiyey. mid walbana la leeyahay raadkiisa hore wuxuu ka soo bilaabay bahasha loo yaqaano fiidmeerta ama kibilayda qofka sida uu u yaqaano. mid waliba midka ka dambeeya waa uu kasii halisaysan yahay, wuuna kasii adag yahay in loo helo daawo. arrinka kale la yaab kale baa wuxuu yahay sidee buu markii mutationka intaa la eg u samayn karaa fayrasku oo kii ugu horreeyey ka ku xigay uu 2 constrain uu uga duwanaan karaa kan haddana 5 calaamadood ay ku kala duwanaan karaan kii ka horreeyay ee MERS-ka, taas oo la yaab noqotay. bal haddaba aynu sharaxno sida uu u shaqeeyo fayrasku. fayrasyada sida uu ilaahay u abuuray ka bini'aadanka iyo kan xayawaanka waa ay kala duwan yihiin. kan bini'aadanka ku dhaca waxa uu leeyahay qaab gooni ah oo uu samaysan yahay, kan xoolaha ku dhaca ama xayawaankuna waxa uu leeyahay qaab gooni ah oo uu samaysan yahay. sidiisaba waxa uu ka samaysan yahay fayrasku markiisa horeeto miiqa wareegsan oo ay dul saaran yihiin borotiino go'an oo kala go'an. borotiinadaas ayaa haddana waxaa kusii dahaaran xuubka dushiisana waxaa ka taagan ilko. ilkahaas waa meesha uu fayrasku ku qabsado unugta jirka bini'aadamka ama xayawaankaba. jidhka bini'aadanka unugtiisu waxa ay leedahay qaab gooni ah oo ay u samaysan tahay oo fayraska bini'aadanka loogu talagalay uu qabsado oo uu ku beegmo. kan xayawaankuna wuxuu leeyahay qaab gooni ah oo faraaro ah oo uu u samaysan yahay. haddii uu ku soo aado fayras xayawaan in uu isku dayo inuu qabsado unugta bini'aadanka ma qabsan karo, waayo ilkaha fayrasku kuma beegmi karaan. haddii uu yahay fayras xayawaan kuma beegi karaan ilkaha unugyada jirka bini'aadamka, mana isqabsan karaan oo uu ka boodayaa markiiba. haddiise uu sameeyo waxa loo yaqaano mutationka, qofkii biologiga yaqaana ayaa yaqaan mutationku waa tadawur
waxa loo yaqaano ama shaar bedelasho. fayrasku shaarka marka uu soo bedesho isu soo ekaysiiyo kii bini'aadanka isagoo ahaa mid xayawaan, marka waa laga yaabaa in uu samaysto qaabkii ay u samaysnaayeen ilkaha fayraska bini'aadanka loogu talagalay, dabadeedna qaab tuuga oo noocaas oo kale ah intuu khiyaanada soo sameeyo inuu qabsado unugtii bini'aadanka, sidaasna uu ku dhex galo bu'dii unuga, isla mar ahaantaana uu bedelo unugyadii gudaha ku jiray ee bu'da ku jiray unugta, halkaasna uu isku badiyo isagoo isu ekaysiinaya unugyadii jidhka bini'aadanka, dabadeedna jidhkii intiisii kale uu sidaa ugu faafo, jidhkiina uu xilli dambe uu ogaado in lasoo dhexgalay oo fayras uu soo dhexgalay, uuna markaa bilaabo difaac. waana sababta keenta inaynu kululaano ama qandhada xumadda waxa loo yaqaano. sababta keenta waa dagaalka uu wado jidhka bini'aadamka oo marka uu ogaado in fayrasku soo galo isku difaacayo. fayraskani marka ugu horreysa wuxuu ku dhacaa dhuunta ama neef mareenka, dabadeedna wuxuu u gudbaa oo uu ku dhegaa xuubka gudaha ee neef mareenka ayuu ku dhegaa unugyadeeda. hadda halkan calaamadda kaaga muuqata, calaamadda ugu horeysa cagaaran waa fayraskii hore ee SARS-ka ahaa. shantaa sare ayuu coronaviruska hadda socda ama covid-19 uu kaga duwan yahay. shanta buluuga ahi waa inta uu kaga duwan yahay kii hore ee SARS-ka ahaa. dhibicda cagaaran hoose waxay u taagan tahay SARS-kii hore. arrinka aadka loola yaaban yahay waxay tahay sidee markii tadawurka intaa laga ama evolutionka intaa lagu u samayn karaa inuu 5 strain ama 5 calaamadood kaga duwanaado SARS-kii. midda lala wada yaaban yahay si degdeg ahna daawo loogu heli layahay ama talaal 5 buu booday markii oo ay ku kala duwan yihiin MERS-kii iyo SARS-kii labadaba. taas ayaa shakiga dadka ku abuurtay ah in uu yahay engineered fayraskani oo wax bini'aadamku ay wax ka bedeleen uu yahay. waxaan arkayay dad badan oo internetka soo dhigay qaybo yaryar ama segments ay ka soo qaateen filimo hore loo dhigay oo ka hadlaya coronavirus. waxaa ka maqan dadka ereyga coronavirus inuu yahay bah marka loo abtirinayo jeermiga. waxa ay leeyihiin baho loogu abtiriyo. SARS-kii hore hargabkii shimbiraha qofkii xusuusta kii doofaarada ka bariga dhexe ka dhacay dhammaantood waxaa la isku yidhaahdaa coronavirus waa bah. maaha coronavirusku cudurkan oo keliya, kan waxaa la yidhaahdaa covid-19. mid walbana waxaa la raaciyaa magac scientific ah kaas oo inta badan lambar wata, lambarkaas oo u dhigma sanadkii la arkay. kan hadda waxaa la socda 2019kii bilihii ugu dambeeyey ayaa ugu horreysay araggiisa in la arko. marka dad waxaan arkayay soo gooyey filimo hore oo la dhigay oo magaca coronavirus uu ku jiro ama qoraal la soo qaatay coronavirus uu ku jiro. magacaasi waa bah. fayrasyo badan ayaa la isku yidhahdaa coronaviruska. SARS-kaasaa ka mid ah, MERS-kaasaa ka mid ah, swan flu-ga la odhan jiray. waxaa ka mid ah kan covid-19ka. marka yaan lagu khaldamin oo la odhan waxan waa wax horay maaragtay loo sii sameeyey ama la qarinayay ama sidan loogu talagalay. taas ha ku dagmina. waxaa kale oo iyadana jirta khiyaali markii uu soo baxay cudurkan dadku ay isla dhex marayeen oo ah dadka muslimka kuma dhaco iyo Soomaalida kuma dhaco iyo cudurkani waa uu ku dhacaa cid walba. waliba waxaa caddaatay haddeerto in Soomaalidu ay ka mid tahay dadyooga ugu nugul oo dadka Soomaalida ah ee ku dhimanaya tir ahaan celcelis marka loo eego boqolkiiba ay ka badan yihiin bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin. dadka qaarkood waxa ay markiiba ku sheegayaan waxa daawo u ah waxaas. run ahaantii waxaa wanaagsan qofku inuu ilaahayna uu aamino daawooyinka dadka cilmiga u leh ee dhakhaatiirta ama dadka saynis yahanada ay soo jeedinayaanna uu raaco. waxaana marka ugu horeysaba cudurkan muhiim u ah ka hortag. ka dabatagiisu aad buu u dhib badan yahay. qofka oo la takoonayo ku jiraya isolation, ku jiraya dhibaato badan, neef mareenkiisii meel walba uu saameynayo, iyo marka ugu dambeyso laga yaabo inuu geeri keeno. waxa muhiimka ah haddaba waxa ay tahay waxa uu ka tegi doono coronavirus. dad badan ayaa waxay sii saadaalinayaan shuruucda haddeerto la meel mariyey ee degdega ah ee la soo rogay, sida in dadka telefoonadooda lala socon karo meesha ay marayaan, dadka cudurrada qaba iyo cidda uu u dhawaaday oo qof walba halkaa laga ilaalinayo ama lagu karantiimayo inta la soo qabto, in uu noqon doono sharci joogto ah iyada oo dadku ay ka khibrad qaadanayaan shuruucdii hore sida loo hirgeliyay. tusaale ahaan markii ay dhacday qaraxyadii New York ee 2001 September 11 shuruuc degdeg ah ayaa la soo rogay si looga hortago inaan argagixiso dambe dib u dhicin.
shuruucdaas waxaa ka mid ahaa sharcigii la odhan jiray Patriotic Act ama sharcigii wadaninimada, kaas oo dowladda u fasaxayay in ay dhegeysato telefoonada, in ay la socoto dhaqdhaqaaqyada dadka, in booliisku ay qof walba basaasi karaan, in dadka erebooryadii la dhigay waxyaabo security ah oo dadka la marinayo, wax walba ay adkaadeen. hase yeeshee markii ay u dhammaaday dagaaladii argagixisadu oo la jebiyey ururadii lala dagaalamayay, sharciga weli meeshiisii uu sii taagnaaday oo aan la laalin oo aanu ku ekaanin intii, balse uu noqday wax joogta ah ilaa qodobo yaryar oo xilligii Obama laga bedelay maaha. tan haddaba sida dalalka qaarkood ay u adeegsanayaan, iyadoo awalba dalka Shiinuhu uu ahaa dal dadkiisa aad u basaasa oo la socdo telefoonadooda iyo meesha ay marayaan, haddeerna kuba soo rogay waxyaabaha iskaanka loo yaqaano ama xariiqaha kombiyuutarka uu akhriyo sida marka dukaamada wax ka iibsanaysid oo qof walba halka caafimaadkiisii lagala soconayo. haddeerto xataa haddii aad shineemo gashid, kursiga aad ka fadhid shineemada waa la arkayaa, iyadoo loogu marmarsoonayo in lala soconayo inaad u dhawaato qof cudurkii qaba. waxaa la adeegsanaya waxyaabaha loo yaqaano face recognition ama in wejigaagii la akhriyo, kaameradii ay akhrido oo qofka aad tahayba halkaa ay ka soo baxdo. dalka Shiinaha oo kaleeto marka iskaanka la mariyo qofka koodhka la siiyey ama baarkoodhka, ama wuxuu noqonayaa cagaar, ama waxa uu noqonayaa yellow, ama waxa uu noqonayaa jaala ka wada af Soomaali ahaan, ama wuxuu noqonayaa guduud. haddii uu cagaar qofkaasi noqdo waxba ma qabo, cid cudurka qabtana uma dhawaan weeye, umana uu safrin meel cudurku uu ka jiro, waa la sii deynayaa. kan jaalaha ay noqoto baarkoodkiisa marka iskaanka lagu qabto waa la karantiimaya ama meel baa lagu haynayaa. ka guduudka ay noqotona isla mar ahaantaas baaba lala kacayaaba. haddaba dadku waxay aaminsan yihiin, dad fara badan, in shuruucda hadda la soo rogay ay tahay qaab la doonayo in lagu banaysto oo lagu xalaalaysto in dadka caafimaadkooda la basaasi karo meesha uu marayo, cidda uu u dhawaaday, maadaama shuruuc badan oo xakameynaysa ay jirto wadamada dimuqraadiga ah oo aan la ogolayn in qofka sirtiisa khaaska iyo qaab nololeedkiisa dowladdu ay dhex gasho. waxaa laga baqayaa in tani ay marmarsiiyo u noqoto dowladuhu mustaqbalka in daatada telefoonada ee hadda ay isticmaalayaan iyagoo kaashanaya sharikadaha isgaarsiinta, in ay qofka iska sii wadi doonaan ilaa mustaqbalka inay telefoonadooda dhex galaan, locationkiisa iyo meesha uu taagan yahay, cidda uu la kulmayo, waxa uu samaynayo, meesha uu joogo, inay iska sii wadan doonaan hawsha iyada ah oo aan sharci xakameyn doonaa aanu jirin.